waxaan mahadda gaarka ah rabaa halkan inaan ugu celiyo saraakiisha iyo ciidamada ay hor taagan oo iyaga dartood aan u awoodnay maanta inaan nimaadno xerada 21aad waa ku mahadsantiin dadaalka aad muujiseen nafta aad hurteen difaaca aad difaacdeen qarankiina waa idinkugu hambalyeynaa waa mahadsantiin halkan waxa ka muuqata tusaale muujinaya burburka qarankeenu sida uu laabtay haddaad aragtaan sarta idinka dambaysa xeradii 21aad oo la dhihi jiray waa xudunta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo la dhihi jiray waa meeshii laga cabsan jiray waa meeshii lagu faani jiray waa meeshii cadawga ummadda Soomaaliyeed ay ka walwali jireen maxaa yaala ciidankee ku jira burburka ka muuqda waxa uu tusaale u yahay meesha aan tagnay waxa ilaahay mahadiisa laakiin maanta in askartii ka dagaalami jirtay mid kamid oo taliyihiina wasiiradiini iyo maamulkiina iyo ra'iisul wasaarihiina ay idin hor taagan yihiin si aan mar labaad u muujino midnimo dalkeenana dib u hagno hadii ilaahay yiraahdo anigoo idinkaga mahad celinaya dadaalka aad soo gasheen intii dhimatay Allah u naxariisto intiina noolna waxaan aad ugu faraxsanahay inaad wali diyaar u tihiin inaad dalkiina difaacdaan xeradii baan dhex taaganahay taliyihiinii baa idin hor taagan dawladdii baa idin timid diyaar ma u tihiin inaad ku biirtaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed diyaar ma u tihiin in la idin qarameeyo diyaar ma u tihiin inaad tustaan galmudug oo dhan oo xoreysan la shaqeeya madaxda idin timid isdiiwaan geliya xuquuqdiina iyo qalabkiina iyo mushaarkiina mar alla markii la idin dhameeyo warqadiina taliyaad kula xisaabtamaysaan hadaad ka weysaan aniga ii soo sheega ballanteenu waa galmudug oo nabada dawlad Soomaaliyeed oo mida qabiil iyo qabyaalad ka xor ah qolo ka xor ah aan soo celino sharaftii ay lahayd xerada 21aad aan bilaawno inaan dib u dhisno sida ugu dhaqsaha badan waa mahadsantiin